marka ugu horeyso start button ka tagaysaa, then all programs Microsoft Office 2013 ku dhufanaysaa, kadibna Word soo dooranaysaa. markuu saan kugu furan yahay waxaad arkaysaa blank document, midka cad baad ku dooranaysaa, kadibna entering text qoraal ayaad gelinaysaa. qoraalka markaad geliso aad qoraalkan camal baad ku qoraysaa, ka copy garay, kadibna markaad saa u qortid aad dhamaysid waxaad tagaysaa file, waa sida loo save garay, save baad ku dhufanaysaa. save garaynta markaa ii sheeg meeshan kore waxaad ku arkaysaa recent folders, folderyada aad wax ku save garaysay goor dhow, ama haddaad aragtid meel ka mid ah computerkaaga hoos aad tagaysaa, browse baa leedahay. browse markaad dhahdid haddaad aragtid flash diskaaga ayaad waxaad ka dooranaysaa navigation banka, geeskana waxaa la dhahaa navigation banka, then meeshaas baad hoos baa aadaysaa, scroll barka isticmaalaysaa. haddeertan desktopkan ku save garaynaynaa, then magaca u bixinaynaa, magacaas oo ah reservationka markuu saas yahay, kadibna save baa leedahay. haddeertan wuu save garaysan yahay. meesha kore title barka haddaa fiirisid reservation ku qoran, ciwaankiisa waa ka. marka labaadna save a document, save as a document, sida documentiga magacan mooy magac kale ayaad ka dhigi kartaa. marka hore save a isticmaal, haddana waxaan isticmaalaynaa save as. save as marka way ka bedelan tahay, magacan document laba nooc kaaga dhigi karaa, ma fahanta, magac kale aad ku save garaynaysaa, ama waxaa leedahay reservation 1 baad dhigi kartaa. save file aad tagaysaa, save as, then browse. desktopka markaad joogtid meesha kore aad tagaysaa, desktop aad dooranaysaa, kadibna waxaad leedahay reservationka ka bedelaysaa, waxaa artida ku qoraysaa booking. waxaan ku qorayaa booking iyo reservation waa isla meeshii un isku soo magac dhow yihiin, then save aan leeyahay. saa ka aragtid meeshii reservation ku qorneed waxaa soo baxay booking. okay, haddii aan fiirino desktopka, waxaa ku aragtaa labadii file ku aragtaa, booking iyo reservation. haddaa furtid isku wax baa ku jira, laakiinse kala magac ayaa loo bixiyey. midkaan save a isticmaalnay markaa magaca u bixinaynay, kanna save as ayaan isticmaalnay, marka saa u ogow. kadibna save a documentiga sida loo save gareeyo in alternative file format kale sida loogu save gareeyo. formatka aan ka hadlayno waxaa weeye waa PDF-ka. documentigan ayaa rabnaa inaan PDF u bedelno. sidee ugu bedelaynaa? waxaad tegaysaa file markaad tagtid waxaad leedahay save as baa leedahay, then browse baad tegaysaa, kadibna desktopka dooranaysaa. maaha desktopka keliya inaad ku save garayn kartid, computerka meesha artida kaga save garayn kartaa. kadibna meeshaan ii sheeg meesha ka hooseyso file name, save as typekaasaad word documentiga ka bedelaysaa. waxaad dooranaysaa PDF, marka PDF-ka waa kaa, kadibna save baa leedahay. uu save gareeyey, minimize aa leedahay, kana PDF file ahaan ayuu save gareeyey. haddaa fiirisid PDF ahaana kugu furmayaa. okay, waa kana qoraalkii waxaan ka dhignay PDF.
meesha kore haddaa fiirisid booking.pdf file extensionkiisa waa maxay .pdf marka saa u ogo .pdf kaasaa aan ku save gareynay marka documentiga saasaa file formatka looga bedelaa markaasaa u ogow kadibna waxaa noogu xigo closing documentiga sida loo close gareeyo marka close gareynaysid waxaad ku dhufanaysaa file tab aad tegaysaa kadibna calaamada close aa ku dhufanaysaa maxaa yeele dantaada waa ku dhamaysatay waxaaga waa save garaysatay waad qortay kadibna waa inaad dhahdaa close kadibna waa kana close waaye haddii aad rabtidna documenti cusub haddaad rabtid inaad samayso waxaad tegaysaa new waad tegaysaa ama haddaad rabtid inaad furto opening an existing document cusub ku samaysan haddaad rabtid inaad furtidna then waxaad tegaysaa open baa ku dhufanaysaa then waxaad kasii tegaysaa computer then waxaad kasii tegaysaa browse then file kenya soo fureynaa oo desktopka noo saarnaa markii aan qornay fileka ka aragto furi kartaa reservation furi kartaa ama booking furi kartaa marka hadda reservation ka furaysaa open baa leedahay marka waa kana uu noo furan yahay documentiga saasaa loo furaa selecting textiga noogu xigo qoraalka sida loo doorto waxaad rabtaa lenkan inaad doorato sadarka falaarta insertion pointiga markaad hor dhigto ama aad gadaal dhigto meeshaad doontida ka dhigi kartaa sadarkaasaad dooranaysaa waa hareynaysaa adoo left click hayo baad saa ku soconaysaa ama waxaad samayn kartaa shiftiga qabanaysaa shifti markaad qabato then falaaraha keyboardka aad ku aragtid baad la raacaysaa shifty arrow okay arrowga ii sheeg forwardka ah ama haddaad rabtidna sadarkaanaad dooranaysaa waxaad leedahay saasaa u dooranaysaa marka selectionka dhowr nooc waaye midda kaleetana waxaad samayn kartaa control waxay u taagan tahay control plus all baad dooranaysaa dhammaan okay dhammaan baad dooranaysaa marka copy gareynaysa control c baa leedahay ama right click baa leedahay then copy baa leedahay kadibna hoosaad tegaysaa control v waa taabanaysaa ama meeshaan aad tegaysaa clipboardka haddaad aragtid bastiga control plus v then paste yaa leedahay marka copyga sameynaysidna meeshaa korana waad tegi kartaa then copy yaa leedahay haddaad u baahan tahayna meeshaasaad tegi kartaa then enter aa leedahay enter markaad dhahdid bastigaasaad dooranaysaa ama control v control c aad jeceshahay marka dantaada ku dhamaysatidna waa iska xiraysaa marka ma save garaynayno waxaa leedahay don't save marka cashirkeena maanta intaas uu ku egyahay